بين waxaa la yiraahdaa qalinka qalin biiraha ah ama laakiin qalin qoriga waxaa la dhahaa ama qalin geedka pencil ayaa la yiraahdaa pencil. assalaamu calaykum, ku soo dhawow kanalka Bara Luqad Academy. casharkeennan maanta waa casharkeenii 15aad ee barashada luqadda Ingiriiska. balse ka hor inta aynan u guda galin casharkeennan, fadlan haddii aad ku cusub tahay kanalka inoo subscribe garee, sidoo kalena muuqaalkan si uu meel fog u gaaro laagtaada ha inaga baqiilin. mahadsanid. aanu u guda galno casharkeennan. casharkeenna waxa uu ka hadlayaa ama uu ku saabsan yahay waa short conversation. sida aanu muuqaalkan ku arki doonnaba waxaynu ku baran doonnaa 2 cashar oo aad u gaagaaban oo ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska, waana short conversation. 2 qof ayaa hadda sheekadu u dhaxaysaa. tusaalahana waxaan u soo kala qaadan doonnaa Mr. A iyo Mr. B. Mr. A ayaa ku horeeya, wuxuu leeyahay what is this? waa maxay kani? what is this? waa maxay kani? Mr. B wuxuu ku jawaabayaa, wuxuu leeyahay this is kani a book. waa book. this is a book. kani waa book. Mr. A ayaa su'aasha mar labaad qaadanaya, wuxuu leeyahay what is that? waa maxay kaasi? what is waa maxay that kaasi? Mr. B wuxuu leeyahay that is kaasi a window. waa dariishad ama daaqad. that is a window. taasi waa dariishad ama daaqad. Mr. A wuxuu leeyahay what are those? waa maxay kuwaasi? what waa maxay? what are waa maxay those kuwaasi? Mr. B wuxuu leeyahay isna those are kuwaasi waa students. arday. those are kuwaasi students waa arday. Mr. A ayaa su'aasha mar kale qaadanaya, wuxuu leeyahay what are these? waa maxay kuwaani? what are these? waa maxay kuwaani? Mr. B wuxuu ku jawaabayaa these are kuwaani pens. waa qalmaan. these are pens. kuwaani waa qalmaan. pen waxaa la yiraahdaa qalinka qalin biiraha ah ama laakiin qalin qoriga waxaa la dhahaa ama qalin geedka pencil ayaa la yiraahdaa pencil. sida aad haddaba meeshaan uga jeedid, pencil waa qalin qori, penna waa qalin biire. soo marka wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi these are kuwani pens. waa qalin biirayaal. waxaynu kala u gudbaynaa qaybteennii labaad ee isla casharkeenii 15aad. waa isla conversation gaaban isagana. Mr. A iyo Mr. B. Mr. A ayaa su'aasha qaadanaya, wuxuu leeyahay how are you? sidee tahay? how are you? sidee tahay? Mr. B wuxuu ku jawaabayaa, uu leeyahay I am fine. waan fiicanahay. I am aniga fine. waan fiicanahay. Mr. A what is your name? waa maxay magacaaga? what is waa maxay your name? your name. what is your name? waa maxay magacaaga? Mr. B ayaa jawaabaya, wuxuu leeyahay my name magacaygu is Ahmed. Ahmed weeyaan. my name is Ahmed. magacaygu waa Ahmed. Mr. A where do you live? where do you live? halkeed ku nooshahay? Mr. B I live in Mogadishu. waxaan ku noolahay Muqdisho. I live in waxaan ku noolahay Muqdisho. Muqdisho. aduu meesha marka aad ku nooshahay ayaad ku bedelan kartaa. oo tusaale ahaan I live in Garowe, I live in Puntland, I live in Hargeysa, I live in Baydhaba and so on. sidaas un baad ugu bedelan kartaa. Mr. A su'aasha xigta wuxuu leeyahay with whom do you live? yaa la nooshahay. with whom do you live? yaa la nooshahay. Mr. B I live with my parents. I live with my parents. waxaan la noolahay waalidiintayda. parents waa waalidiin. Mr. A su'aasha xigta where were you born? halkee ayaad ku dhalatay? where were you born? where halkee were you born ayaad ku dhalatay? Mr. B ayaa jawaabay, wuxuu leeyahay I was born in Baydhaba. waxaan ku dhashay Baydhaba. I was born in Baydhaba. waxaan ku dhashay Baydhaba. Mr. A wuxuu leeyahay su'aasha xigta how old are you? imise sano ayaa jirtaa? meeqa jir ayaad tahay? marka aad leedahay luqadda Ingiriiska meeqa jir ayaad jirtaa ama meeqa sano ayaad jirtaa ama meeqa jir ayaad tahay, markii aad dhehaysid waxaad leedahay how old are you? imise jir ayaad tahay? meeqa sano ayaad jirtaa? Mr. B ayaa jawaabay, isna wuxuu leeyahay I am 16 years old. anigu waxaan jiraa 16 sano. I am 16. anigu waxaan ahay 16 years sanad old da. soo marka la fasiraya ama la micneynayo waa la israacinaya, waxaa la leeyahay I am 16 years old. anigu waxaan ahay 16 sano jir. 16 sano ayaan jiraa. waa tahay ardayhii casharkeennii 15aad ee barashada luqadda Ingiriiska. intaas ayuu inoogu dhan yahay.
intaynu cashirkan cashirkiisa xiga dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. hala baraatikeeyo casharada.